السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada kusoo dhawaada janaalkan Somali Design Media magacaygu waa Cabdi Xuseen Abu Suhayb oo ah qofka idin la socodsiin doono ama idin siin doono casharadan fadlan subscribe dheh kadibna taaba gambaleelka si aad u hesho muuqaaladeena waxaa jira asxaab kale oo asxaabtaada kamid ah kuwaas oo ayagana daneynaya barashada Photoshopka fadlan ayagana u share garay si ay uga faa'iideystaan waa course gaaban taasi oo idinka saacidi doonto inaad jarjartiin sawirada inaad samaysid design-ka rabtid inaad samaysid boorka cabirkii wax kasto hadda waxaa jiro casharo aan ugu talagalay si ay dadkaasi ay wax u fahmaan qaybta ugu horeyso waxay noqon doontaa qayb basic ah oo qofka aan hoos ka soo dhisi doono anigoo midba midka ama cashir ka dambeeya ama ka muhiimsan u sii gudbi doono haddii adiga aad subscribe garaysayna fadlan asxaabtaada kale la wadaag si fudud ayaa ayagana casharadan ku heli doonaan haddaba faa'iidaysi wacan waa mar kale ay kusoo dhawaado cashirkeennii Photoshopka haddaba maanta waxaan ku baran doonaa cashirkeena Photoshopka sida kolka hore horta loo sameeyo in aad ku shubtid Photoshopka inaad ku shubtid tusaale Photoshopka saa u jeediin waa muuqaal noocan oo kale ah oo BS ay ku qoran tahay haddaba sidee softwarekan horta marka koobaad ugu shuban karaa jidkee ayaan u mari karaa okay marka hore horta waa inaad haysato softwarekii kadibna waxaan ku siin doonaa steps ama tallaabooyin aad ugu shubi kartid okay saa u jeediin installationka ama qaabka loogu shubo Photoshopka marka hore waxaa lagu dhahay fadlan internetkaada ama connectionka internetka disable ka dhig internetka iska xir marka aad wax ku shubaysid internetka iska xir hadduu internet ku furan yahay macnaha wuxuu ku keeni doonaa dhibaato wuxuuna ku weydiin doonaa koodad iyo inuu Adobe system kula aado haddaba si ay taasi u dhicin disable the internet connection marka labaad waxaa lagu dhahay Photoshopkaaga raac sawirada ama installation screenshots ka soo socdo saa u jeediin stepka koobaad wuxuu kuu soo saari doonaa marka ku shubtid sidan haddaba welcome install iyo try waxaad ka dooran doontaa calaamadan aad u jeedid ee highlight saaran yahay ee ah try kadib wuxuu kuu soo saari doonaa si lamida sidaan oo kale maadaama internetka ay iska xirtay oo internet uu isku shaqaynaynin sign in iyo back ayuu ku soo qori doonaa waxaana dhihi doontaa sign in kadib saa u jeediin meesha wuxuu soo qorayaa fadlan ku xir internetka sababtoo ah marka hore ayaa internetka iska xirayba si uusan ii saameynin maadaama sign in uu ogolaaday waxaan samayn doonaa oo hadda uu weydiin doonaa inaan dhaho sign in later okay saa u jeediin markaan wuxuu ku soo qoray Adobe Software License Agreement halkan aa u jeediin waxaa ku qoran accept iyo back waxaanan dooran doonaa ama aan aqbali doonaa samayn doonaa inaan accept dhaho okay accept ayaan dhahayaa kadib saan ayuu isu saari doonaa install ayaan ku qaban doonaa markaas suu kuu soo qorayba installationkaadii waa la dhamaystiray halkaa markay taagan tahay wuxuu ku weydiin doonaa launch iyo close hadda waxaa samayn doontaa launch sometimes waxaa dhacday inuu sign in later mar labaad kuu soo celiyo laakiin marka qaarna ma dhacdo oo toos ayuu wuxuu kuu gudbin doonaa inuu ku siiyo trail okay start trail 30 beri oo trail ama macnaha maxaa jiray muddo ah ayuu ku siin doonaa waana aqbali doontaa intaasi markaa samaysay marka uu ku shumay already Photoshopkaadi ama softwarekaadi haddaba kadib installationka oo markaa launch garayso as trail important waa markaas waa sameynay installation kadib launch shop Photoshop as trail waa galnay
kadib waxaa lagu dhahay close the photoshop. horta waa iska xiraysaa photoshopki markaas. kadib waxaan rabaa inaan karaagii 30 beri la siiyey aan ka dhigay forever si aan u isticmaalo softwarekaas marka aan rabo oo ma forever aan u isticmaalo anoonan wax tareyla ama waqti ama muddo aan haysanin. haddaba waxaa lagu leeyahay waxaa soo kobiyeysaa filekan ay ku qoran tahay amt lib ay ku qoran tahay d_l ay ku qoran tahay. karaagan waxaa lagu dhahay midkaan soo koobiyey waxaan kaga soo koobiyeyna from the crack folder. crack folderka ayaan kasoo koobiyen doonaa. kadibna waxaan samayn doonaa in aan geeyo program fileka slice adobe kabacdina aan photoshop aan kasii tago. okay taas marka saa u sameyn laha haddaan sameynay haddaan marka aan gelaynaa. okay for example ana hadda wuxuu ii yaalaa photoshopka wuxuu ii yaalaa volume-ka ii yaalaa. okay photoshopkayga waa kanaa sax waa kanaa softwareka. okay photoshop hadduu computerkaada uu yahay 64 byte hadduu yahay kana dejinaya, hadduu yahay 32 bytes hadduu yahayna saana dejinaya. okay aan marka 64 waaye kanoo kale waa kana karaaga marka karaagan oo kale furaya marka si oo forever udhigto waa kana baalka lagu sheego lagu dhahay soo koobiyey amtlb_l kanoo kale koobi soo dhexe. kabacdi markaa soo koobi soo dhahdo waxaad tegaysaa computer waxaad tegaysaa localkaas. kadib waxaa aadaysaa file oo program halkaa markaa joogo waxaan ka dooran doonaa adobe waxaan kasii dooran doonaa photoshop cc 2015 softwarekaas. halkan ayaan right click intaan ku dhaho aan best ku dhihi doonaa. hadda ma soo koobiyeynin best ayaan ku dhihi doonaa. wuxuu dhihi doonaa ma bedeli doonta haddaan ugu jira laakiin qofka uusan ugu jirin kalo saas ayuu sameyn karaa. okay good trail aan waqti leen ayuu kusiin doonaa oo forever ah. okay intaas haddaa fahanteen asxaabteyda waxaan hadda bilaabanaa marka haddaba waxaa jiro workspace waxaa laho workspace maxaa lahaa spacekan aan ku shaqeyn doono ayaa workspace lalahaa. saa ujeediin meeshaan aan ku shaqeyn doono ayaa workspace lalahaa. meeshaan waa meeshii shaqada lagu qaban lahaa. okay waa kana saa ujeedin qaybtan kore menu bar lahaa oo arki doontiin waatana qaybta u koreyso arki doontiin haddii aan soo furo softwareki waa kana menu bar qaybtana lahaa. okay waxaa jiro qayb kalo qaybta ka hooseyso ayadan option baana lahaa. saa arkeysiin qaybta ku koreysa qaybta ka hooseyso haddii aad softwareka aan ku argtaanna kana taabto option bar oo kuwana hadda ka markaa taabto waxaa soo baxay optionkii waxyaaba aan dooran lahaa soo baxay. option barna kuwaasaan lahaa waa qaybtan markaa kuwaan dooratid ka hooseyso ee soo bixi doono waay. okay waxaa jiro toolbox waxaa laho ayadana qaybahan ah by default toolbox waa lafti photoshopka qaybta micnaha waxaa jira laftiga waaye. okay intan aan ka argno akwana qaybtaas. okay qaybtan balatiska ah waa qayb waxaa ku jira kalaradii wixii oo kale ku jiro waa kuwana balats qaybtaan lahaa marka kalaradii ku jiro switches waa kalarkii waa kuwana qaybtaana marka waxaa lahaa balat qaybtaan lahaa. okay hadda intaas daa ka gudubno sharxaadii ahayd qaabka aan installation u sameyn karo iyo workspacekan qaybihiisa kala duwan ama uu haysto. hadda waxaan sameyneynaa marka oo aan qaadanaynaa sida aan sawir aan background uu leeyahay oo sax aan uga bedeli karo marka
haddaan rabo background laan aan uga dhigi karo. haddii aan rabo aan samayn karo waxaa la dhaho inaan backgroundkaas aan background kale aan saaro. okay okay haddaba aan aragno haddaba si aan meeshaan aan u keeno waxaan u baahna aan u keeno maxaan samayn karaa. si aad sawir soo gelisid waxaad tegaysaa file, waxaad tegaysaa open. okay waa optionka kale oo wax kusoo gelin karo. kabacdi meesha uu sawirkaas ii yaalo ayaan raadinaa marka ma garat. okay maxaad dooran kartaa control o, sidoo kale meesha sawirkuu geenaya. ama maye waxaa samayn kartaa drag and drop, inaan intaa soo jiido meesha aan dul geeyo photoshopka anoo hayo left click la hayo, kabacdina balasteen wata aan sii daayo. intaasba meesha ku geen karaa. marka waxaad taabanaysaa control o ayaa taabanaysaa. click 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 ma bujers ugu jira. click 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 waa kana control plus ayaan leeyahay si aan u weynaysto. haddaan yareynana control minus. okay haddaba waxaan rabaa inaan backgroundka aan ka jaro. backgroundka inaan ka jaro ayaan rabaa oo backgroundkan hadda saaran aa ujeediin inaan ka jaro. okay haddaba sidaan ooga jarayaa saa ujeediin meelahan waxaa yaalo tooliskii aan hadaan idiin sheegayay toolbarkii. marka waxaan sameynayaa midkaas ay ku qoran tahay quick selection ama aa ujeediin kaas aa ujeediin ayaan dooran doonaa. click ayaan ku dhahayaa kaas. saa ujeediin calaamadii waa isbedeshay. calaamadan markaan taabtay optionadan ay soo baxay. waxaan sameynayaa marka kan waa plus, kanna waa minus, kanna waa cabirka baalkan hadda ujeediin intuu hadda leegyahay. okay good waa iska yareynayaa marka waxyar waa iska yareynayaa. okay banaankan imaanaya saanaan dhahayaa. okay waa soo qaadanayaa left click markasta la qabanaya waa jiidayaa. okay okay intaa kasoo bilaaba haddana. okay saa ujeediin waan highlight geliyay ama waa selection geliyay sooma. waa weyneysanayaa marka control plus ayaan leeyahay. okay si aan u saxo waxyaabaha iga jiro kalo hadda baashan aad u weynaatay marka waa iska soo yareynayaa. okay weli waa yareynayaa. okay ta waa u filanta marka. okay intaa markaan taaganahay balas ta aan wataa saa ujeedin calaamadan wata waa balas. haddaan okay ku dhaho ma ii qaadayo. si aan marka ugu daro dhigtaan maadaama ay maqan tahay aan ugu daro waxaan sameynayaa minus aan leey marka. okay left click 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 ilaa aan ka bixiyo oo wadaya. okay qofka wax kuma jiro markaas click dheh. okay tanna wax yaraa ku jiro click dheh. okay hoos soo jiid. tan kale wax iga jira mala. okay good qaybtaan marka ayadana inaan jaraan rabaa. plus taan soo qaadanaya. okay click aan ku dhahayaa. okay wii highlight gelay ana click aan ku dhahayaa. wii highlight gelaasne halkaas markaan taaganahay waxaan sameynayaa marka waxaa dhan waan doortay waa highlight gelaysan yihiin saa ujeediin. saa ujeediin waa highlight gelaysan yihiin kulligood. okay okay hadda halkaas taaganahay waxaan sameynayaa marka select ayaan tagayaa. kadib inverse meesha ay ku qoran tahay ama control ama shift plus control plus I ayaa okay ku dhahaya. soo jeedin waa qoran tahay. hadda anoo halkaan aadin aan intaan taabto shift plus control plus I aan doortana waxaa dhici doono in shaqada hadda aan qabanayo uu ii qabto.
okay okay ku dheh saa ujeediin sawirkii bes ayaa ii highlight garoobay ama iisoo doortay meesha awal macnaa background ku ii doornaa. okay good refine edge meesha ku qoran tahay ayaa click ku dhahaya. saa ujeediin meeshaan waxay soo bixi doono boxkan. haddaba meeshaan aa ujeediin waxaan saari doonaa jega halkan ay renis ay ku qoran tahayna waxaan samayn doonaa eber eber ku qoran waxaan ka dhigi doonaa 2.2. okay halkan edge ku qoranto 00 dib u celinaya. okay good intaan geysanaya halkan marka taagana waxaan sameynaya meeshan selection output to selection ay ku qoran tahay click ayaan ku dhahayaa. waxaan ka dooranayaa layer mask. okay kadib waxaan sameynayaa okay ayaan leeyahay maxaa dhacay. saa ujeediin sawirkii backgroundka ahaa sawirkii bes ay soo haray. sawirka bes ay soo haray. okay sawirka bes. okay waxaan rabaa marka sawirkan inaa backgroundkii hore waa ka jaray background kale aan ku daraa rabaa marka. okay waa baxayaa marka waxaan raadsanayaa sa in sheega kale waxaan sameynaa marka control o ayaan dooranayaa. okay sawir kale oo gadaal anigaa soo helo waaye. okay sawirkan waxaan soo qaadanayaa marka soomaaliya iguma jira soo aan wadanayaa soomaaliya aan prefer garaya inta badan ama aan doorbida. okay waxaan sameynayaa marka dhib malahan happy birthday aan qaadanaya marka background oga dhiganayaaba. okay happy birthday sama. okay markaan aan qaatay waa kana marka kan waa kii hore kana waa kii haddaan soo import gareeyey. waxaan sameynaa marka logan aan ka qaadaa click aan ku dhahay horta way furaya hadda markaas. waxaan sameynayaa marka move toolkan markasta waa asa wax ku qaadi doono. okay kanaan dooranayaa. okay okay save iga raba. okay waa kana marka left click la qabo qaad waxay geystaa meeshii. okay saa ujeedin waxaa sameynaysaa shift alta si isulaag uu kugu noqdo aa sameynaya. left clickna waa la jiiday. okay waxaa sameynaya kana hoos aa ujiiday waa left click la qaban hoos aa ujiiday waa la ekeysiina. kana sidoo kale kor aa ujiiday left click la qabanaa. okay calaamadan saxda okay aan ku dhahaa. okay kii sawirka marka waa kana ugu koreeya macnaha background ka dhiga ugu koreeya sawirkii qofkana waa kana ugu hooseeya. haddaan lacala aan qariyo saasaan dhaho waa kaasa kii saxda. haddaan waxaan rabaa inaa background oga dhigo left click aan la qabanaa hoos la usoo jeedaa bis kanaan ku hoos marnaa bis. okay okay ninkii marka meesha deer fadhiyay maxaa sameynay background waxaan u sameynay any background aa u sameynaysid waa kaasa. okay kadib waxaa sameynaysaa banaanka oo bixinaysaa save aa dhehaysaa save as aa dhehaysaa. okay meesha aragta inaad dhigto ku sheega desktop aan rabaa inaad dhigto. okay magacaan ku qoranayaa tijaabo. meeshaan bsd hal maarta inaan kuu save garay hadhow wax ka bedeli kartid ama waxaa rabtaa ku leeyahay sawir ahaan. okay bsd aad ku save garaysid oo hadhow aad soo kacaysid waxbaa ka bedeli kartaa. okay ana waxaan leeyahay marka sawiraan ka rabaa. okay waa furay meeshaan kadibna png aan ka dooranayaa ama waxaa ka dooran kartaa jpeg ay labadaas ka dooran kartaa. okay aan leeyahay kadibna waxaan sameyn doonaa save aan dhahaa. okay halkaa ma kusoo dhigo okay aan leeyahay. okay meesha sa uwadin save inuu wadaa ilaa uu dhameeya halkaan ka wadaa uu dhameeya hadda. okay banaanka u bixi doonaa sawirka waa kana kii horena waa ogeedin siduu ahaa. haddaba asxaabtay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa casharkeeni koobaad ee photoshopka. haddaba ha iloobin inaad subscribe saata janaalkeena haddii aad ku cusub tahay. u sheergaray asxaabtaada ayagana siday kooraskan firiiga uga faa'iidaystaan. haddaba waa ku mahadsan tihiin daawashadiina.
is aragti dambe oo xiiso leh iyo cashirkeena labaad ee photoshopka. wixii su-aalo ah oo aad idinku soo laabto ama aad igu weydiinayseen cashirka aan bixiyo, fadlan commentiga hoos igu soo qoro, qof kastana uu soo jawaabi doonaa oo su-aalka qabo. waa mahadsantihiin mar labaad.